واسكو دقينا كوا يري روح أركاي فلاير كي استلابة تصوصار كوا يروا باقت كبت حاج شو جدي كنسل عمل دراما شو adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin balanta ayaa ahayd inaan dib isugu soo laabano allana wuu idmayah ku soo dhawaada barnaamijkii daraama show ka daawataan Soomaalida shidan oo mar walba idin soo mardhiga wax walbo aad maanka ku haysaan daraama show adiga kuma dan lahaane dadka iska soocin hoy maanta waxaan idin kugu haynaa barnaamijka kabta xaaji hadal cadideedii in fiiqfiiqeeda ayaan idin haynaa fanaanadii Hargeysa showgi lama ilaawanka ay ka dhigtay oo waxaan ku yiraahdaa reer Hargeysa oo dhan kilkilaa waxay lacag ku hayeen soo wada bixin oo showgu soo wada horeen baa iminka baxayso Yurub hadana show kala ku dhigayso waxay ku dhigaysaa Jarmalka fanaanada kaligeena maahan markan loolanbu showga ka galay kaweera mar walba loolanka way u bareeday iminkan ayaa halkii kula sugan oo kula qaban doona la yiri waa leel baleel xitaa waxay ka sheeganaysaa farxiyo kaweerin showgeedii la fiiqay ciyaal yar yar oo waxay tiri caruura intaan heesay baa fiiqay showgeega masaajidka ciyaarta laga daayay taaganta dhukura diamond markii Hargeysa tagtay dhukurada diidi jirtay waa tila baxday oo markii garoonka ka tagtay dhukura diamond waa joogtay landeernimo waa tahay daawadayaal farxiyo kaweer dhukuradan waa waagi hore diidi jirtay weeyaan Soomaaliya dhukurada waa waxay diidi jirtay dhukura ay dhahan uma socda Hargeyso fankeedan waxay tiri inay hooyada tahay ha isku qabto markii dambana waxay tiri dad qalbi wanaagsan waaye arfana qofka la sirsirahay in la faansho weeyaan intaasna in yar kaftana iga ahaatee waa lama kala xanaaqay maadaama barnaamijka daraama yahay hadal qalalan ma rabtiin xogaa in la idin suugayo cusba iyo dhandhanaanka iyo milix iyo sokorta lagu badiyo weeyaan farxiyo kaweer iminka hab New York mar walba fanaaniinta dhaqaalaha ay ku tashtaan ay fanka u joogaan waa sanadka cusub iyo ciida markii la gaaro iyo markii sanadka cusub la gaaro fanka waxaan ku yiraahday showyi fanaaniintu ay kala shaqo tagaan laakiin farxiyo kaweer hadda kor ay tir ciid maysa maana qaban show ciidna uma fadhiyo inaan show qabto talo ma soo qabatay dib loogu laabtay taaganta daawadayaal horta wax yaraan rabay in aan ka hadlo laakiin taasina waxa laga yaabaa inaad markii aan farahas galo aad sharbaha dhulka igu xirteen waxa jira khudbad uu soo jeediyay sheekheena Sheekh Umal uu yiri xayisiisida la saaray YouTube-ka waa xaraam uu yiri lacagta laga qaato marka waxa jirta channelkiisa oo channel khudbadihiisa badan jimcaha khudbad oo akhriyo oo waxaan ku yiraahdaa anoo ka warwarsan oo dhahay walaalayaal maxay tahay saano lacagti ma xaraam baa la shaqeynaya ba channelki waxaan arkay soo galin jiray wacdigiisa iyo wixiisa khudbadaha jimcihi uu ka akhriyo masjidka oo xayisiis saaran marka waxaan isra sheekhu muu ogamiya maso channelkaas way u banaantay in xayisiis kala saaro taas ayaa shaki hadda iga aqoon runtiina commentiga ayaad ku soo qori doontaan laakiin barnaamijka muusan ahayn in aan uga hadlo qaybtaas anana culimada in aan faragashto la igama baran igana sugi miisaan laakiin su'aal ayduna isweydiinteeda la weeyaan wax isweydiin ma xume wax isweydaaris baa daran bay hore Soomaalidu u tiraaday markaan uu taaban la arko xogaa bal bulshadaada mar walba ku dhageysato la wadaag bay iga tahay mashaayixdu waa dhaxalka ambiyada weeyaan marka in wax laga sheegaa ma wanaagsan waa wax laga deeriyay aan ka soo gudbay aan hore u galay bal farxiyo kaweer ayaduna showgeeda ku qabanayso magaalada waa dalka Jarmalka iyo Yurub iyo meelo kale tagi doonta Allah waclam Yurub ay wareegi doontaa laakiin iminka halkaas ay ku qabanaysaa Jarmalkan qaxooti kuwii Liibiyo maro dhan iyo wixii Talyaaniga tago dhan halkaas isku arooriyeen meesha waa lagu shimuumaa la dhahay dhukura diamond ay maata deen maqlaan isii shinada amal lagu shamuumi doono oo maleynaya si ay badda uga gudbeen inay hoolka buuxsami doono hadda koorne wada aragteen in taariikh lagu dhigayaan UK ayada iyo ninka kale YouTuber-ka ay ka dhax dhacwalanka adduunyo isku qoofalana jirta farxiyo waa lagu yaabaa markan ilaan Hargeysa martay aad ku yeeda joogtay meeshaan dad waxa jooga maaragtay lacag shaqeysanayo oo haddana uu kaaga sii horeeyay fanaan la yiraahdo Leel Baleel oo asaguna reer Afrika ah iyo iminka Yurub meel marmaraya bal arrinkaas ayada ayaaba ka hadlayso inay soo socoto dadweynaheeda wargelisay oo war bayaan u soo saartay bal iminka adinkuna inala dhageysta farxiyo diamond ama dhukura diamond sida taqaanin ama kala yaraba kabta xaaji الله asxaabtayda taageerayaashayda reer Jarmalka waa idin salaamay kabta xaaji waa idin salaamaysaa wax badan in badan ma la dhihi jiray waa idin ladanahay hadda waxaan idin sheegayaa kabta xaaji waxna waa sidaa waana soo socdaa waaye Jarmalka New York waa isku da'aynaa kuwa yareer waxaan arkay flyer kayga istalaabta soo saaray kaweer waa baaqat كبت حاج شوقي كنسل عمل ورا عيارتي جوجيه اسكو فعمل هنا عيارتي جوجيه عياله يا اتيشن ربتين عيارتي جوجيه والسلام اصحاب السيو فرانكفورت يو نيو يير
هذا ما هنروح نفرد يا ذيك درتينا وشو من كريستو يا وجدان يا وكاسها وصاصع وكاسها شلنا love you guys see you Frankfurt مرنو الله إله وأنا وذي شوقي دون نادي فرحية كبيرة يراي مركها هالكاس كانت تدو هذيك يو ليل بليل ده هذا كورنا وحن إني هذيك يو يعني حسن قنتال مية أو مقدشي شوقي دي كده عتي دين كل رعد ولا هذا كورنا هذا عبد الرحمن وهذا سقبت كل الشوق ما هذيك على جالس وده بدك سدا مساعدة كده بدك سدو وأرن ماشي دي كجرتو لكن وح كونك سنان لهيت لابد إنه أنت يصير لك الشوقة وحي كصوبحنا كلا برتا إلين أضم ملك واحد اللي أقل بنان لقيتها هو برتن كتير كلها هني أضم ملك بس أصلا يا اسكو بيجو ويسكو باهين هنا الروايات دي هبليه وهاد ما تقرسن دونتان halkee ku jirtaa dhiduntiin ana hadda hore idin kaga sii sheegay riwaayadaasi hablayahow had ma taqursan doontaan oo aan baxday ayuu ku jiraa gabaygaasi marka de gacmo wada jir bay wax ku qabtaan adinku isla dhigo showgi ka qayb qaata labadiinaba oo wixii ka soo baxana kala qaybsada hunguriga iyo sutba amal sida ciltuba weyn idinku furmine farxi ka weer maadaama aad waa sii shaqaysatay horta aan weynaan go'aamiye ma arinkaas laakiin waa in yar maaragtay iga tala inta taladayda yar weeyaan waaye hadda ka hor xasan gantaal iyo adiga ayaa muqdisho isku qabsaday oo muqdisho markii hadda ka hor showga lagu dhigayay xasan gantaal oo halka tagay ka dhacday waa loogay farxi ka weeran hadda ka hor wixii tiri Nairobi baa show la iga baajiyay oo wixii tiri qabiil kamid ah qabiilada Soomaalida inay show iga baajiyaan oo Nairobi ayaga xog ku haystay tiri la'aantoodna show lama dhigi karo muqdisho markii la tagay wixii tiri aniga sharb ku leh ayaa iga hor iman karo hadda jarmalka ayaa sharb ku leh talow waan wada fadhin doonaa inaan wada heshiisiin inaad sharba iska xirteen waa la wada arki doonaa hadii alla yiraahdo annaguna hadii aan daraamanahay isha ayaynu ku hayn doonaa oo waan soo tabi doonaa wixii halkaasi ka dhaca shar iyo qayrba haduu Allah awood la raali ka noqdo oo waan idin soo gudbin doonaa waa tahay daawadayaal qaybtan intaas ayaan ku soo afmeerinaa qaybteeda kale intaan ku kulmi doono amaan Allah ayaanu idin leenahay iyo ismaqal dambe oo xiiso leh laakiin waxba jiraan mariyaan idin ka codsantay inaad nagu soo biirtaan soo maysahayn oo asxaabtii hadii aad ka heshiin aad la wadaagto asxaabtaada bariyahan waxaan ku yiraahdaa barnaamijka hore ayaan ka soo gabagabeeyaa in aan idin sheegin intaas waa waay barnaamijku moogta waa barnaamij idinka aad u baahan tihiin de wax idin soo gudbisiin ayaan idin soo xaqiijiyaa halkaan idin ku soo bandhigaa marka la wadaag asxaabtaada naguna soo biir si aad uga mid noqotid bahdeena Soomaalida shidan gaar ahaan aniga wacag ma dhigaan Soomaalida shidan runtii aad bay u ballaaran tahay gabdhiyo wiilal kala way ka shaqeeyaan oo way badan yihiin nasiib darrada jirta qofkii waxaan ku yiraahday soo hadlaba waxa leedahay wacag ma dhigaan waxaan ku yiraahday hawshiina wata idin kama qaban kartay qaybtan intaas ayaan ku soo afmeerinaa
أما إيدا أبو ديراي وبالي مابو أما أودا نغا براي أما إيدا أبو ديراي